أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت تاريخ وحويان وكوي لباتن كي بيش سديدات سنة لوضع كوني كوي لباتن وحين كنت راولي تضبات كي حسكي سنة جوردي صدني تضبات جفد ودني حرين توجادين سيدا أوجد وحنولي لي همرك همبليو وإلهي مهدي مرهدي هالجنكي جفد ودني حرين سومالي توجادين جوحه وصدي الصعدة وسن كلا جوين جميس جون وسن كل جولة سنين وسن كلا شرن أنت أكيد هدي سؤال لإيويديو سؤال اللي إيويدينا أي تهي محا سببيا إن نولشادي مراد سيدان وبراروجينay sideed u hadlaysid iyo marad halgan ku soo jirtay iyo marad halgan hubeysan ku soo jirtay maxaa uu sababa waxa ay sababa waxaan soo qaadanayaa 3 dhacdo oo dhacdana ay aniga si gaar ah ii qabsatay laba dhacdana aan tusaale u soo qaadanayo oo saaxiibadeyda halkan soo qabsatay dhacdada aan ay qabsataan ku hormaraya marka dhacdada aan ay qabsataa waxay tahay markii gumeysii madow Ethiopia uu hortayda daadiyay saaxiibadeedii halkan ee jarabkayga ahaa yaa waxaan go'aansaday inaan sidan ay laba mid u tahay inaan ku xoroobo iyo anoo xorriyada ku jiray inaan u shahiido mowqifkii sida ahaaba wali iga go'an sida awgeed xilliyada kamid ah oo shaqo ku jiray ayaa meel la yiraahdo barda farasle oo ku taala cariga Soomaalida ogaadaya yaa anoo hawlahay qabsanaya xilliga ayada boqolkiiba waxaan dhihi karaa shacabka Soomaalida ogaadaya halgankaas jabhada wadaniga xoreynta ogaadaya way taageersanayeen maxaa daliil cad dhacdadan baa inooga filan meel barda farasle yiraahdo anu imid ceel bay qodanayeen waxaan marka waanu imid danahayga baan qabsanayaa baan sida awgeed shakhsiyaadkii marka qodahaya ceelkii baan anu ka mid noqday xilliyada kamid ah ayaa dhalinyaradii ceelka qodaysay mid kamid ah ayaa wuxuu xogogaal ka noqday inaan anu ahay xubin gubannimo doona sida awgeed waxa qaaday kalgacayl xilliga ayada ah magaalada meesha aan sheegay waa barda farasle magaalada qabdaharu wuxuu soo raadiyay inuu ii sameeyo wixii uu ii huri karay dhaqaalahaana inuu ii keeno isla mar ahaantaana uu ila sheekaysto oo habeennimadii sida loo sheegaa waxay ahayd ninkan aad arkaysaan habeenkiina godka iyo beertaas u galaa maalinkiina inaku ceelkiina la qodahaya waana xubin jabhada markii liida ayuu arintaas sameeyay marka qayb kamid ah shacabkii ayaa marka waxay dhaheen kuma kalsoonin ninkaasi inuu yahay inuu xog geynayaan u qaadanay cabsida laga qaaday ayaan anu habeennimadii meesha ka baxay waxaan galay godo geed marafra hoosti god ruwa meel ka qodneed xilligii aan kala saareynay ninkaasi inuu wax xaq ku maqan yahay inuu dhibaato soo wado sida awgeed godo ruwa baan soo galay xilligii fiidka ahayd saadaan u soo galay ruwaya soo istaagay ruwaya markii soo istaagay meesha waxa agteeda soo maray hooyo xayn aari raadinaysa waan ka gabanayay geedkan ku gabanayay waxaan weheshaday korihii baa soo degtay xilligii oo koruhu igu dhawaaqayna hurdadii baan idhi waan ladayaa marka waxaan ka wadaa waxa aan ka dhuubanayo waa dadkayga aan wax u raadinayay waxa aan weheshanayna waa kore sida awgeed xilliga xorriyada markii lagu jiro halgamaagu marbuu kore weheshanaya tusaalahan waan soo koobay taariikh waxay u baahan tahay dhacdo dheer oo taariikha weeye waxaan ka wadaa marka sida ay dadka shacabka Soomaalida ogaadeen ay taageersanaayeen ay halgankii jabhada wadaniga xoreynta u taageersanaayeen ee eegan u taageersan yihiin ayaan tusaalaha u soo qaatay ee ugu dhacday aniga tusaalaha kale waxay tahay xilliyada kamid ah oo aan ka baxay gudaha ogaadeen dalka Kenya aan u tagay xutinimadii aan ku tagay halgamaa kamid ah halgamaayaashii ayaa
saacaddan saa u kala tagnay gumaysiga Ethiopia u yimid baawur bay ku qaateen safaaradda Ethiopia dhexdeeda assassination lagu sameeyay xabadaha madaxa lagaga dhuftay xilliga iyada ana banaankii ku soo tuureen markaan qaadanayna xabadihii madaxa kaga jira way kala soo baxeen waxa assassination ka sameynayna waxa ay gumaysiga madowga Ethiopia ee uu ka mid yahayba hogaanka maanta wadanka uu haysta la sababta isaga wuxuu ahaa hay'adihii ugu sareeyay ee sirdoonka Ethiopia uu ka mid ahaa sida awgeed su'aasha la isweydiinaya waxay tahay waxa ka qiimo badnaatay halgamaaga rasaastii madaxa laga dhuftay kala baxeen gumaysiga madowga Ethiopia dhacdada kale waxay tahay saacadihii ugu dambeysay halganka hubaysnaa sidii nafsad horayaasha jabhadda wadaniga xoreynta ogaanaya saaxiibadeedii halganaha intii la laayay gumaysiga madowga Ethiopia laayay inay meedkooda dhaho lama aasi karo ya kadibna magaalada dhexdeeda lagu soo jiido isla mar ahaantaana nacabkii gumaysiga kuwa u adeegahay intay madaxa kaga istaagaan ay sawir iskaga soo qaadahayeen sida awgeed labada dhacdo ee midna aan anigu aan tusaalaha u soo qaatay ay ana igu dhacday labana aan tusaale u soo qaatay saaxiibadeedii halgan ninka noocaasihi hadduu halganka ka hadlo haddii uu tala bixintiisa soo gudbiyo hadduu halgankiisa sii wado ma wuxuu noqday nin sal fudud oo degdegahaya mise waajibkiisa raa buu halgamaagaasi gudanaya waxaan usoo hormarinayaa marka maadaama aan marka ku jiro toddobaadkii iyo xuskii hambalyeyntii aasaaskii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ama aan dhahayna sanad guuradii 37 ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxaa lagama maarmaana in aynu isxusuusino taariikh kooban oo halgankii iyo su'aalo muhiim ah oo ka imanaya shacabweynaha Soomaalida ogaadaya iyo waxjaradkiisii iyo halgamaagii tayada sare lahaa su'aalaha ka imanaya iyadana waan raacinayna oo su'aalo ayaan raacinayna sida awgeed waxaan leeyahay si fiican u dhageysta taariikhda halganka Soomaalida ogaadaya ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ama halgankii soo jiray Soomaalida ogaadaya taariikhda oo koobanna waa sidan barkii ugu horeysay ee dalka ogaadaya gumaystayaashii reer Yurub u aqoonsadeen in Abyssinia lagu wareejiyo waxay ahayd 1897 waxaa hadda laga joogaa 124 sano ciidankii ugu horeeyay ee duulaan axmaarada ah waxay daraawiishi ku jabisay jigjiga 1900 waxaa laga joogaa eeja 121 sano waqtiga dalka ogaadaya in yar mooye waxaa ka talinayay daraawiish weerarkii gumaysiga Ingiriiska uu ku qaaday xarunta daraawiishta asaga oo adeegsanaya dayuurado 1919 wuxuu dalbaday in Talyaani iyo Axmaaro mid walba dhinacooda ka soo cidhiidhshaan daraawiish sidaa daraadeed ayay Axmaaradu 1920 ciidamadeeda soo gelisay qaybo ka mid ah ogaadaya waxaana sabab u ahaa gumaysiga Ingiriiska oo u adeeganayay cidhibtirka daraawiishta waa wixii loo yaqaanay rayidka British Military Red Against Ogaden 1935 waxaa ogaadaya la wareegay Talyaaniga oo ka saaray meelihii koobnaa ee Axmaarada u dajiyay Ingiriisku 1942 ogaadaya waxaa qabsaday gumaysiga Ingiriiska oo dagaalkii labaad ku jabiyay Talyaaniga 1945 markii gumaysiga Ingiriiska laga diiday barnaamijkii Soomaali weyn in uu isagu isku haysto wuxuu diyaariyay in ogaadeen si buuxda ugu wareejiyay gumaysiga Abyssinia 1948 ayuu Ingiriiska gumaysiga Abyssinia ku wareejiyay qaybtii ugu badnayd oo ogaadeen 1954 waxaa haddana
ku wareejiyey qaybtii kale ee hawd iyo reserve area gumeysiga rasmi ah loo aqoonsaday ogaadeenaya laga reebay madax banaanidii Soomaali weyn waxaa xilliga waxayna noqonaysaa hadda joogitaanka gumeysiga Abyssinia muddo 73 sano ah haddaba su'aalahan baa yaala marka inta taariikhda haddaan intaa kaga gudubno su'aalahan baa yaala su'aasha meesha taala ma jirtaa waqti shacabka Soomaalida ogaadeenaya codkooda la weydiiyay oo ay ku ogaadeen in ay yihiin qoomiyad ka mid ah dalka Ethiopia su'aasha Soomaalida ogaadeenaya ma waxay ahayd mid gumeysi mise mid xuquuq qowmiyadeed barnaamijkii ONLF ma wuxuu aqoonsanaa in ay ogaadeenaya tahay qayb ka mid ah Ethiopia oo la duudsiyay xuquuqdeedii mise mid gumeysi oo xoog iyo jujuub lagu haysto bulshada Soomaalida ogaadeenaya ma waxaa ka maqan xuquuq maamul oo ay isdoortaan mise waxaa ka maqan xurriyad hanasho dalkooda haddii ay doodu tahay waxa maqan xuquuq maamul laga bilaabo darjiga oo ogaadeen raasges darjigii oo la sameeyay ogaadeen raasges iyo maamulka bariga Hararge waxaa madax ka ahaa rag u dhashay dalka Soomaalida ogaadeenaya laga bilaabo 1993 ilaa maanta waxaa loo aqoonsaday magac calan xuduud iyo in la leeyahay qoomiyad Ethiopian ka mid ah waxaa mas'uul ka ahaanaya waa dad u dhashay Soomaalida ogaadeenaya haddii aynaan rabin xurriyad maamulka deegaanka u aqoonin adeege ma waxaynu u halgamaynay in aan noqono adeege bedelay BB Addis Ababa iyo BB Jigjiga maxaa farqi ah oo u dhaxeeya soo ma aha hal xisbi isku meel looga taliyo oo hal hoggaan leh la subhanahu wa ta'ala ha ayna siiyo in aan fahanno xaqa iyo xaq darrada inaan kala fahanno xaqa iyo xaq darrada aamiin taariikhda kooban iyo su'aalaha ka imanaya shacabka ama waxjaradka ama halgamaaga tayada sare leh ee Soomaalida ogaadeenaya waxaan dhihi karaa marka codkeygii aan ku bilaabay ahayd sababta aan mar inaan uga hadlo ay tahay sababta inaan u halgamo ay tahay sababta aan dadku u baraarujinayo waxaan ahay nin saddexdaas dhacdo ee ku bilaabay miyaan sal fududahay mise wax xaq ah oo kay ah oo inaan guta ah ayaa gudanaya gumeysi madow Ethiopia ha dhaco Soomaalida ogaadeenaya xorowdo soo noqdo wanaagsan anigu Axmed Sacaad Waas Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh